Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay idin lahaantiina soo dhawaada mar kale ku soo dhawaada page-kayga. Haddaba waxaynu maanta soo qaadanay inaan ka hadalno ama aan faaqidaadno qaladaadka uu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay 2023 boorteeriga kooxda Manchester United ee Onana qaladkiisu aad ayuu u badnaa sababtoo ah waxa uu u ciyaarayay sidii qof aan mas'uuliyad ka ahayn goosha uu markaasi uu xakameynayay ama golhayaha uu ahaa kooxda Manchester United. Waxa uu ciyaarayay sida ciyaartooy qadka dhexe ka ciyaara camal. Mararka qaarkood wuxuu isku dayay inuu markaasi u dhedheelo si jees ah, laakiin ciyaartu kama sugayso inaad jeesto. Waxay fursad u tahay weeraryahanka kaa soo horjeeda markii aad adigu isku dayaysid inaad jeesto. Haddaba qaladaadkiisa ayaa waxay noqdeen kuwo aad u badan oo inta badanba dadkii taageeraha u ahaa kooxda Manchester United ay inta badanba ka caraysiisay. Qaladaadkiisu ma ahayn kuwo istaag leh ilaa iyo sanadkanba waa ay sii socdaan. Haddaba kooxda Manchester maxaa markaasi la gudboon haddii uu sidaa u sii wado ciyaarta iyo qaladaadka uu wado Onana oo golhayo u ah kooxda Manchester United. Daawade haddii aad taageerto Manchester United ama ay tahay kooxdaaduba adigoo xumaan u harkaynin maxay kula tahay fikradaaduna maxay tahay sideese loo xakameyn karaa deysha iyo ciyaarta uu markaasi Onana keenay. Mahadsanid.